gabadhan waxay xiriir jacayl la samaysay aabaheed oo markaa arrimo layaab leh ay dhex mareen markii dambe. Aninkiga dhaca sheekadeeda oo dhammaystiran. Gabadhan waxaa la yidhahdaa Samantha. Gabadhan hooyadeed wuxuu ka tagay aabaheed ayadoo markaa dhashay Samantha gabadhan. Markay saan u dhashay ayuu ka tagay oo markaa uu dayacay hooyadeed iyo gabadheedaba. Ilaa markii dambe Samantha ay weynaatay oo ay gaartay 17 sano. Markaas oo maalin maalmaha ka mid ah ay weydiisay hooyadeed inay markaa la kulansiiso aabaheed maadaama aysan weligeed arkin aabaheed oo aysan markaa la kulmin. Hooyadeedna way ka aqbashay. Samantha waxaa lala kulansiiyey aabaheed oo markaa ah ninkan sawirkiisa halkaa in soo dhigay oo markaa ah aabihii Samantha. Samantha aabaheed waxaa la yidhahdaa Travis aa la yidhahdaa, sawirkiisana halkan in soo dhigay. Marka maadaama ay is arkeen oo marka ay kulmeen way ku farxeen kulankoodii maadaama gabar iyo aabaheed oo kala maqan ay ahaayeen. Marka waxaa jira gabar uu markaa dhalay Travis oo ah aabihii Samantha. Gabar kale uu dhalay ayaa jirta oo markaa uu ka dhalay naag kale oo markaa la da ah Samantha. Maadaama marka Samantha ay heshay gabar la dhalatay oo markaa la aaba ah, waa ay ku faraxday. Samantha iyo walaasheed Said ay iskugu soo dhawaadeen, waana ku faraxday inay markaa gabar la walaal ah ay heshay. Samantha marka aabaheed Said ay ugu dhawaatay maadaama aysan weligeed naxariis waalidnimo ama dhanka aabanimo aysan helin. Marka aabaheed Said ay ugu dhawaatay. Aabihiina markaa Said ay u jeclaaday gabadhiisa maadaama gabadhiisa ayadoo markaa hooyadeed ay dhashay ay ugu dambeysay. Marka asagana wuu ku farxay. Said ayna iskugu soo dhawaadeen, mar walbana waa isla joogeen. Marka waxaa laga soo wareegay muddo 3 sano ah. Marka Samantha hadda waxay jirtaa 21 sano. Maadaama Samantha iyo aabaheed ay Said iskugu soo dhawaadeen oo markaa Said ay mar walba markaa ay isku dhow yihiin, mar walba isla sheekaystaan. Markaa kalgacayl waalidnimo markaa dhex maraya in gabadhii walaasheed ahayd waxay u aragtay markaa way hinaastay. Waxayna u aragtay inay markaa jacaylkii ayada loo qabay ay la wareegtay markaa Samantha. oo markaa Samantha aabaheed uu Said u jecel yahay oo markaa Samantha mar walba uu xaggeeda jira. Sidaa darteed way maseertay, way hinaastay si ay u dhigto. Ilaa markii dambe ay isku dhacaan oo markaa ay yiraahdaan anigu ayuu aabii jecel iyo anigu way jecel yahay. Ilaa heer ay isla gaaraan aabi inuu aniga jecel inuu adigu jecel waa ogaanaynaa. Kadib waxay galeen tartan ah inay ogaadaan qofkii markaa uu jecel yahay aabaheed Samantha ama gabadhi kale qofku uu jecel yahay inay ogaadaan. Sidaa darteed marka labada qof ka mid ah la imaaday markaa maonigan. Marka tu ka mid ayaa markaa bilowday inay isqurxiso, yani waxay kala damacsanayaan moogi. Marka ala kulli xaal sheekada say ahayd aan kaga sheekeyna. Marka way isqurxiyeen, tii kalena ayada waa isqurxisay, taro isqurxinay aragtay. Waalidka marka aabood qofku uu jeclaadaan arkiina. Marka waxay galeen tartan ah inay isqurxiyaan oo markaa ay ogaadaan qofkii markaa aabood uu markaa soo jiidan doono oo markaa uu jeclaan doono. Maadaama marka Samantha ay jacayl markaa aabanimo aysan arkin weligeed, aabaheed mar walba la joogtay waana ku dhadhegi jirtay. Marka sidaa darteed marka ayada unbuu dhankeeda u badan yahay. Sidaa darteed marka Samantha walaasheed waxay aragtay Samantha in dhankeeda loo batay. Sidaa darteed ayada waxay u aragtay in la nacay u aragtay. Marka laakiin arrinta yaabka leh ayaa ah jacaylkii siduu u sii socdo meel xum ayuu gaaray. Marka waxay aabaheed ku dhadhagtay markii dambe heer waxay isla gaareen markaa arrin faaxisho ay dhex marto oo markaa sariir isla fuulaan. Kadib intaas kuma aysan ekeynina iyagoo markaa isla taagan sawirra iska soo qaadayaan, Facebook ay soo dhigayaan, waxay ku soo qorayaan waa isku qurxanna Soomahan iyo waxyaabo kale oo markaa gabar iyo markaa aabaheed aan ka suurtoobin. Taas oo markaa keentay dadkii markaa jiiraamaha ahay inay ka shakiyaan. Dadkii jiiraamaha ahay inay ka shakiyaan oo markaa arrintii hadalkii wixii la wadwaday ay markii dambe gaartay hooyadeed Samantha hooyadeed. Markaas Samantha hooyadeed markay gaartay oo arrintii maqashay waxay wacday booliiska si ay u ogeysiiso arrimaha jira oo markaa si ay baaritaan ugu suubiyaan. Gobollada qaar oo Mareykanka ama USA gobollada qaar sharciga waa diidaa waxyaabaha qaar inay markaa waalid markaa iyo cunugiisu markaa xiriir dhex maraan waxyaabo noocaas.
maanta hooyadeed waxay wacday booliiska waxayna ogeysiisay inay markaa ka shakisanta arrimahaasna marka ay soo gaareen oo booliiska marka ay baaritaan ku suubiyaan oo arrintaasna ay jirta oo gabadhayda iyo markaa aabaheed inay waxyaabo qaldan oo galmo ay suubinayaan camal kadib inay booliiska markaa ay baaritaan suubinayaan waxaa u sheegay qof ayaa ka dabageeyey warka markaa socdo oo marka inay booliista ay baaritaan ku suubinayaan mar dhow lasoo qaban doono oo waraysi loo keeni doono sidaa darteed marka waxay is dheheen sharcigiisa isugu badbaadaan caqli xumidooda marka waxay ku fikireen inay markaa isguursadaan oo markaa guur ay u bedeshaan si ay hadhow markaa sharciga ay ugu badbaadaan laakiin caqli xumadooda waa aabeed iyo ayadii waxaa marka gabar iyo aabaheed waa si markaa sharciga uu noqonayo waxaas hata guur iyo wixii noqoto si ay noqoto maalin maalmaha kamid oo loo yiri waxaa la wareystay in maaragtay hawlaha soo gaaray waa loo sheegay inaa shaqada iska qabataan la sheegay marka waxaa la yiri maxaa jira soo boodayna anaga waa isqabnaa ay yiraahdeen aabe iyo gabadhiis isqaba ma shaqaynaysa marka sheekada marka asaga soo booday wuxuu yiri marka gabadha marka aniga aaba rasmi ah umiyi aaba koreed waa camal marka waxaa lagu subiyey baaritaan dhiigga DNA laga qaaday waa la baaray haddaa la baaraba waxaa la ogaaday inuu yahay aabaheed rasmiga ah kadib waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah aabaheed ayadana Samantha waxaa lagu xukumay 9 bilood oo markaa xarig ah waxaana la dhahay haddaa jeelka soo baxdiin hata noloshiina dambe islama xiriiri kartiin la dhahay dhacdada markaa intaasay ku eg tahay kheyra in rajeynaya insha allah channelkana subscribe noo saar gambalelkana furta marka dhacdooyinka noocan camal ayaan soo gudbinaynaa insha allah marka han hilmaamina muuqaalka sii sheegaray si dad badan u gaaraan anagana dhiirigelin ay noogu noqoto marka dhacdooyinku ugu yaab badan oo dunida ka dhacay soo gudbinaynaa insha allah kheyra in rajeynaya